بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkan Baraka Mystery isku soo noqod wanaagsan, maalin wanaagsan. cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa structure of proteins, qaab dhismeedka ay leeyihiin borotiinada. cashirkan wuxuu ka tirsan yahay jabtarka afraad ee biochemistry-ga. waayahay proteins are polymers. borotiinadu waa giant molecules, waa molekuulo aad u waaweyn. polymers ama polymer waxaa la dhahaa molekuulada aadka u waaweyn. polymer means many monomers joined together. polymer macnaheedu wuxuu yahay many monomers badan joined together oo si wada jir isugu xirmay ama isugu dhagay. marka monomer maxaa waaye? asagana waa maxay monomer? monomer waxaa la yidhaahdaa waa building block macnaha aas-aas. waa aas-aaska laga bilaabo markii la sameynayo polymerka. marka polymer is a giant molecule but monomer is a small thing, waa shay yar. marka polymerka wuxuu ka samaysan yahay many monomers joined together, monomers badan oo si wada jira isugu dhagay. monomerna maxaa waaye? waa aas-aaska marka la sameynayo polymerka laga bilaabo. waayahay hadda proteins are polymers. borotiinadu waa sheeyaalo waaweyn ama giant molecules, laakiin muxuu ka samaysan yahay? waa polymer of amino acids. polymer ka samaysan ama ka kooban amino acids. amino acids maxay noqonayaan marka? waa monomers. amino acid waa shayga ugu yar ee laga sameeyo borotiinka. borotiinkana maxaa waaye? waa giant molecule, waa polymer. amino acidna waa monomer. waayahay marka proteins are polymers. borotiinadu waa sheeyaalo waaweyn oo ka samaysan amino acids and they are connected, waxayna isugu dhagan yihiin ama isku haaya to each other, midba midka kale waxaa isku haaya by peptide bound, dabarka loo yaqaano peptide or ama peptide linkage ama isku xirka peptideka. waa isku mid inaad tiraahdo peptide bound or peptide linkage. laba eray oo mar kasta uu u dhexeeyo or ama af soomaali macnahoodu waa isku mid. marka polymers borotiinada waxay yihiin polymers maaragtay giant molecules, waa molekuulo waaweyn oo ka samaysan of amino acids and they are connected, kuwaas oo isugu xiran
to each other midba midka kale uu ugu xiran yahay by peptide bound dabarka loo yaqaano peptide or peptide linkage ama isku xirka loo yaqaano peptide chemical ahaan peptide linkage isku xirka loo yaqaano peptide-ka is wuxuu yahay amide maxaa la dhahaa amide waxaa la dhahaa markii carbonyl group uu dabar la sameeyo amine group dabarka ama meeshaan isku xirkan compoundka meeshaas ka sameysma ayaa la yihahdaa amide waa carbonyl group marka uu ku darsamo amino group NH2 waaye laakiin marka ay isku dhegayaan kana OH groupa ka go-aya kana hal hydrogena ka go-aya OH group plus H group waxay sameynayaan water biyo marka ay isku dhegaan carbonyl group iyo amino group waxa ka sameysma waxaa loo yaqaanaa amide formed kaas oo ka sameysma between inta u dhaxaysa carboxyl group COOH waxaan ku soo qaadanay chapterkii 3 waa functional groupka carboxylic acid ama organic acid waxaa lagu magacaabaa carboxyl group iyo amine group ama NH2 group labadan falgalka ka dhexdhaca ayaa waxaa ka sameysma amide waaya halkaana kuugu sharxay cafwan hoosuu jiray looma jeedin carbonyl group iyo amino group marka ay isku dhegaan productiga ka soo baxaa la yihahdaa amide waa labadan markay isku dhegaan waayahay okay marka sida aan hore usoo sheegnay waxaa isku dhagaaya carboxyl group iyo amino group ama amine group meeshaas maxaa ka dhacaya marka waxaa ka dhacaya a condensation reaction or dehydration reaction falgal biyo ka saaris ah condensation reaction iyo dehydration reaction waa isku macno waa falgal biyo ka saaris ah biyo ayaa meeshaas ka go-aya biyaha intuu ka go-a marka between inta u dhaxaysa 2 molecules laba molecule oo similar ah isku mid ah or different ama kala duwan oo maxay ah oo amino acids ah laba isku mid ah ama laba amino acid oo kala duwan ama laba amino acid oo isku mid ah ayaa isku dhegi kara biyana ka baxaya meeshaas oo ka go-aya proceeds waxaa sii raacaya taas ama waxaa daba socda by combination inay isku darsamaan ama isku dhegaan amino group oo ah NH2 of one molecule oo mid ka mid a molecuulada amino acidka mid ka mid a ku dhegan NH2ga ama amino groupka ku dhegan labada amino acid ee ama isku midka ah
ama kala duwan midkood NH2 ku dhegin amino group of one molecule muxuu ku dhagaa marka with the carboxyl group COOH ka of the other amino acid ka kale kadib water molecule is removed meeshaas waxaa laga gooyaa ama waxaa ka go'aya hal molecule oo biyo ah and peptide bound is formed halkaasna waxaa ka samaysmaayo dabarka loo yaqaano peptide bound waa ku tusi doonaa peptide bound insha allah exampleadan ayaan kugu baraya the product maxsuulka of the reaction ee ka soo baxa falgalkaas is called waxaa lagu magacaabaa dipeptide why loogu magacaabay dipeptide halkaana lagaaga jawaabaya jawaabtu waata because maxaa yeelay it is made up wuxuu ka samaysan yahay of 2 amino acid laba amino acid uu ka samaysan yahay therefore waxaa lagu magacaabay di oo laba ah iyo peptide oo magacii boundka ama dabarka ah waayahay waxaan qaadanaynaa laba example example 1 combine isugee 2 glycine molecule laba molecule oo glycine ah 20 amino acid ayaa jira oo aad horey u soo baratay ama beejkan beejka ka horeeya ku yaala marka waxaa lagu yiri laba glycine molecule ah isugee combine to form si ay u sameeyaan dipeptide sababtoo ah labo amino acid hadday isku dhagaan bordhagtiga soo baxa ama meeshaas maxsuulka ka soo baxa waxaa loo yaqaanaa dipeptide 3 hadday isku darsamaana tripeptide 4 hadday isku darsamaana tetrapeptide 5 hadday isku darsamaan pentapeptide marka beejkan beej ka horeeya ayaa ku baran doontaa insha allah marka hadda laba amino acid oo isku mid ah ayaan isu geynaynaa haddaa halkan waxaa kugu soo sheegay condensation reactionku wuxuu dhex maraa markii ay isla falgalaan 2 similar laba isku mid ah oo amino acid ah or 2 different amino acids hadda 2 similar aan ku tusinaa example 1 example 2 waxaan ku tusinaa 2 different insha allah peptide bound sida uu ku samaysmaayana waa ku tusinaa insha allah ila soco waayahay solution xallin okay laba glycine molecule waay glycine molecule siduu ku samaysmaa ardayow formulaha amino acidka waa sidan halkan waxaa ku dhegan r amino acid kale wuxuu uga duwan yahay waa rtaas when r is equal h waxaa samaysmaya glycine oo ah the first amino acid ama the simplest amino acidka ugu fududaa samaysmaya waa ujeedaa rteni aan qalin guduudan kuga calaamadiyo r booskeeda waxaa ku dhegan h kan waa hal amino acid kanna waa amino acid kale ardayow falgalaa dhex maraya falgalka siduu u dhex maraa ardayow OH-ka ama hydroxyl groupka amino acidkan bidixda jira iyo hydrogenkan amino acidka midigta jira ayaa go-aya oo isku darsamaya OH
haddii loo geeyo h meeshaas waxaa ka samaysma ardayo water marka meeshan waxaa ka go-aya hal molecule oo biyo ah si fiican ila soco inta maxaa ku soo haray marka intaan way go'day waxaa ku soo haray carbonyl groupkan waa kan intii ka dambaysana waa tan carbonyl groupkan intii ka dambaysay na waa tanaa okay kan hydrogenkaanaa go-ay nh kaanaa soo haray waa kan nh carbonyl groupka carbon double bond oxygenkina waa kan iyagaa isku dhegaya carboonkii iyo nitrogenkii dhexdooda dabaraa ka samaysmaya dabarkan dhexdooda ka samaysmaya loo yaqaanaa peptide bound or peptide linkage orayaan usoo aragnay labadan magac inay isku mid yihiin ardayow two similar amino acid sidaas ayay isugu dhagaan biyahan sida qaabkaasi oga baxaan inta soo hartayna waa kuwan intaan gabalkan wuxuu ka soo haray waa kan nh kan waa kan intii kaleto ku dheganaydna waa kan kanna carbonyl groupki waa kan intii kaletona waa kan carbonka iyo nitrogenka dhexdooda ayaa dabar ka samaysmaa dabarkaana loo yaqaanaa peptide bound or peptide linkage waa markay isku darsamaan two similar amino acids laba amino acid oo isku mid ah exampleka labaad waxaan isku dhejinaynaa two different amino acid waayahay markaan maxaan soo qaadanaynaa marka example two waxaa lagu yiri combine isu gee glycine oo ah the simplest amino acid iyo amino acidka ku xiga oo loo yaqaano alanin to form si ay u sameeyaan dipeptide waayahay sidee loo qoraa glycine waa when r is equal h formulaha sidaanuu ku ahaa formulaha amino acidka qaabkaanuu ku ahaa ardayow halkan r halkan carboxyl group halkan amino group halkanna h halkan markii lagu bedelo h waxaa soo baxaya glycine halkan markii lagu bedelo ch3 ama methyl waxaa soo baxaya alanin waa laba amino acid oo isku xiga midda ugu yar iyo midda ku xigtay ka weyn aan isku darna labadooda waa kuwan laakiin halkaanaan ku dhigaynaa step by step ayaan kuu fahamsiinayaa ila soco ha iga harin marka hore aan r ku bedelna h maxaa noo soo baxaya waxaan helaynaa glycine aan ku bedelno nh2 halkan h inta h halkan qaabkan ma ahan qaabkan aan u qoranno aan u geyno amino acid kale amino acidka kale waa alanin aartan markay la eg tahay ch3 waay halkan besaan bedelaynaa intaan kaleto sidiisa u qoraynaa okay kanna wuxuu noo noqonayaa n hydrogenadii halkanna h halkan hta kale iigu dhaji halkan intii kaletood raaci halkan h inta ch3 inta cooh kan sidiisa u dah maxaa dhacaya marka hydrogenkan iyo oh groupkana go-aya minus water biyay samaynaya biyaa meeshas ka go-aya inta ii soo hartay intaan ardayow soo qaado halkan hoose iigu soo qor
وكاس انت اي سوارتي كنا معاك سوار انتان iyagana soo qaado nitrogenka iyo kaarboonkan dabar dhex dhig waa kaas dabarkii intaan soo qaadi egtaan intii dambana raaci dabarkan waxaa loo yaqaanaa peptide bound ama peptide linkage qaabkaas ayuu u sameysmaa peptide bound waxaan u malaynayaa ardayay inaad si fiican u fahamteen laba amino acid oo kastana aad isu geyn kartaan waa kan waa la isu geeyey one molecule jarmay oo water ah waa kan meesha ay isaga dhegeen cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay how to form peptide bound ama structure of protein intaas ayuu noogu egyahay haddii ay tahay marka kuugu horreysay ee aad soo booqato kanaalkan Bara Chemistry fadlan subscribe like share commentna ka bixi haddii asxaabtii hore ugu xirneed kanaalkan Bara Chemistry aa ka mid tahayna like tana badi share tana badi oo asxaabtaada marka adiga aad ka faa'iidaysato iyagana ha faa'iidaystaane usii share garee commentna ka bixi qaabka cashirkan uu kula yahay ardayow like-ta badan faa'iida ii leedahay hal ii like gareeyo asxaabtiina usii share gareeya subscribe hadduusa saarin ha saaro saaxiibka aad u share gareysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu